aad u faraxsanahay wadankii inaan imaado aan arko horumarinta inaan ka qayb galo baakinka dawladda hoose ayaan ku arkay gabar iyo 4 caruur oo halkan ilmo ku sawirayso marka waxaan niyadeeda galshay caruurta halkan lagu sawirayo hadii halkan qurux badnaan lahayd maxay fariin sawirka u diri lahaa runtii fadlan hanaga baqiilin inaa follow page-kan oo dhacdo sina faafiso muuqaalka mahadsan waa markii labaad oo dib u dayactir lagu sameynayo muddo 6 sano gudaheed ah taalada Talyaaniga ee loogu magac daray amiirkii Talyaaniga Umberto de Sofia Romanament ee ku agtaala masjidka qadiimiga ah ee 4 rukun ee degmada Xamarweyne 28 February 1928 amiirkii Talyaaniga Umberto de Sofia ayaa mid kamid ah booqashooyinkii ugu muhiimsanaa abid uu boqor ku tago dhul Afrika ah ku yimid Soomaaliya isaga oo sida taariikhda lagu xusay 1 Maaj 1928 daahfuray argada dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay ayay ku burburtay argada Umberto de Sofia si ay xasuusta Talyaaniga u sii noolaato maamulka gobolka Banaadir ayaa go'aansaday in si casri ah dib markale ugu dayactiraan runtii waa marka argo taariikh aad u weyn ku leh magaalada sidaas oo kalena ah bar dadku isugu yimaadaan oo darjiin dadweynaha oo dadku ku kulmi jireen burburkiina marka ku dhacay dhibaato weyn sad arkaysiinba goobihii taariikhiga ah oo magaaladuna ay qayb ka inay burburto marka dadaaladii lagu soo celinayo goobihii taariikhiga ah ay dawladda hoose Muqdisho dayactir xoogan marka ku samaysay si taariikhdii dib loogu soo celsho sida arkaysaan waxba lagama bedelin qaab dhismeedkeedii waxa lagu soo kordhiyay waxay tahay dayactir guud iyo qurxin iyo cagaarintan quruxda badan marka aad arkaysaan marka waa argadaas taariikhiga ah oo dhinaca kalena uu ka xigo masjidkii asagana qadiimiga ah ee 4 rukun oo dawladda hoose isagana sanadkii 2014 sidaas oo kale ay u soo celisay marka waa argo sidaas taariikh weyn ugu leh wadankaani darjiin dadweynaha tirka iyo qurxinta beertan lagu sameeyay waxa ay leedahay taariikh gaar ah waxaan xasuustaa galabgalbaha kamida anigoo halkan darjiinka kaga soo baxay baakinka dawladda hoose ayaan ku arkay gabar iyo 4 caruur oo halkan ilmo ku sawirayso marka waxaan niyadeeda galshay caruurta halkan lagu sawirayo hadii halkan qurux badnaan lahayd maxay fariin sawirka u diri lahaa runtii markaan aragtidaasi arkay waxaan go'aansaday in arintaani kor loo qaado oo marka meelaha uu quseysho la geeyo waxaan si gaar ugu mahad celinayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir Ahmed magaalada Muqdisho gudoomiye Yuusuf Xuseen Jimcaale oo markii aan aragtida u geynay si degdeg ah u amray in loo dhiso waxaan halkan uga mahad celinayaa barnaamijka qaramada midoobay ee UNJBLG la yiraahdo isagana gacanta ugu xoogan farsamo iyo dhaqaale ahaanba ka geystay marka sidaas ay ku suura gashay in xaruntan sidan loogu dhiso dib loogu soo celiyo muddo 4 bilood oo hadda dhismaheeda socdana oo arkaysay inay gabagabowday dhawaana la filayo inuu gudoomiyaha gobolka Banaadir Ahmed Muqdisho uu xariga ka jaro sidaasna uu noqoto meel dadku ay yimaadaan dadku dalxiisayaasha ay yimaadaan dadka magaalada jooga ayaguna ay darjiin ahaan ay ugu soo nastaan marka dhismaheedii sidaas uu ku soo bilowday waxa qabado hadda aan kala kulanana ma jirto waxay noogu dhamaatay si aad u qurux badan waxaan sugnaana waxay tahay inuu markaas si rasmi ah u xarig jaro gudoomiyaha gobolka Banaadir Ahmed magaalada Muqdisho sanadkii 2017 ayay ahayd markii dib loo dayactiray taaladii hore ee fashiistaha iyo boqortooyadii Talyaaniga Umberto de Sofia Romanament markaan way ka duwan tahay sidii hore oo waxaa laga dhigay goob bilicdeeda lala ashqaraarayo bulshadana waqti gaar ah oo ay ku nastaan kuna caweeyaan ku qaadan karaan lamaanayaasha iscalmadana isku casuumi karaan dalxiisayaashana ku tamashayn karaan magacay waa Sameey Maxamed Muxidiin arag Canada ahay maxaa ka tirsanahay dawladda hoose aad u faraxsanahay wadankii inaan imaado aan arko horumarinta inaan ka qayb galo isbedelka aad ugu faraxsanahay duqa magaalada madaala horumarinta isbedelka oo noo soo wada gobolka Banaadir wadanka imaade badanka shaqo marka laga soo baxo maxaa jiro goobo oo noocan camal oo lagu nasado ma fahamt aad ugu faraxsanahay hadda ana ogaado shaqo marka ka soo baxo hadda ana meel ku nasado ana imaade karo ما فهمت قوبا نوعا إن شاء الله this is just the first step ما فهمت كو أهد كان إن لبضيو على رجينا سنة كان صوص إن شاء الله